waxaan la joogaa qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir weliba ah mooto dhalinyarada mooto bajaajta wada ku bilow magacaaga abu magacayga waxa la Cabdirasaaq Saciid Ismaan waay Cabdirasaaq Saciid Ismaan bal waxaad ii sheegtaa waa maxay 26 Juun 26 Juun waa xornimada waagi la qaatay Soomaaliyeed waay yaa qaatay xornimada 26 Juun waxa qaatay Soomaaliyeed ma Soomaaliyeed ba qaatay 26 Juun xornimada ما هو بتاع واصليها واي صاحبك ما ويدلنا ايش شق مقعك هذا مقعك بلو عبد الرحمن محمد آدم عبد الرحمن محمد آدم ولا لا تكشون محيط هاي لا تقدموا مالنت حرنimada Soomaaliya xornimada لا تكشون يا قاطي لا تكجون xornimada qaatay Soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda way Soomaaliya koonfurteeda iyo waqooyigeeda qaatay buuri adigu waxa tiri Soomaaliya oo dhan baa qaadatay koonfurta qaadatay way Soomaalidu waa imisa marka Soomaaliya la sheego Soomaaliya waa imisa shanta kiis waa shan Soomaaliyeed Soomaaliya way shanta Soomaaliyeed cidii qaadatay xornimada 26 Juun ma gaaro waa ka xiliga 26 Juun waa dhinaca koonfureed qaadatay bal saaxiibka baan ku weydiinaya mar labaad way saaxiibka wuxuu leeyahay 26 Juun waxa qaatay gobolada koonfureed baa qaatay ma ku taageersan tahay 26 Juun waad ku taageersan tahay waa tahay saad arkaysaa waxaan ku sugannahay gobolka Banaadir meel ka mid ah oo degmada Hodan baynu ku sugannahay waxaan oranaa rayga dadweynaha ee ku aadan maalmaha xorriyadda bal waxaan weydiin doonaa dadweynaha kale inay la waafaqsan yihiin rayga labada wiil dhalinyarada ah in 26 Juun ay qaadatay xornimada gobolada koonfureed Soomaaliya waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkeena bartankiisii midnimo media daawasho wanaagsan daawadayaal waxay la taagan mid ka mid ah dadkii ku dhashay gobolka Banaadir ee ka baxay ee haddana ku soo laabtay ku bilow magacaaga way Saciid Saalax Cali taariikh intee leg ama ilaa imisa ku dhalatay gobolka Banaadir waa ku dhashay waxaan ku noolahay ilaa 20 jir way dadku waxaan ka diray dagaalkii waxaan tagay wadanka waxaan ku noolahay ilaa iyo 37 حتى دجال كنا كده أوجد عن واتاي ما أنت أوكرة واحد أدوكا صومالة كل ولا يقص الزاد لا تكتشون ما تقنا لا تكتشون حلوة وين هاي كوست يسمى ما شاء الله واحد صوص عطسه كله كود اللوليو مالنتي أي إسرائيل قبل هذا بقوي يكونفر أهنا مالنتي سيجارة بريمة ضغط على في الصومالية ومشتي إيطالياني بالكور ما أنت شعورت هذا يدريك هقول لك شو أمة الصوماليات حاد سفر يوم بيسوي أمة الصومالية ما شاء الله وحاول يعني فرين إني هذا حاجة أي مذوبان بس كده يا معناها حقيقة لو حيوقانا يعني حتى أنا عايز قدر إني توصل اللي وطنك أنا كوكولنا لكن سبحان الله تتوين أيا جرا أو وطنك وحنين قصان وتلقلا سيدا أوجد وأنا سي مسلم ما يعني معركة عودة فنا أن أوجانا المسلم كالمسلم هذا أوجانا على راسه وحواه مسكين وقبينا عيور بنا إيمان أو كده قالوا أنا يا إنه ولا وحكات تابع كاتي أو خيال وتاي كاسنا وامد كم إذا داودياش يقرأ قيب قاتي برنامج كمال أنت حرمة الصومالية قبل ده بقول وتاي داوديال يعني هل واحد يقول أصلا كم إذا ما موي قبل كبنادر ما هو بقى ما قدر ورسمه واحد يقول شيء ما لبيه حرية الصومالية وحالي واحد نفسه نحن لا تقول شو واحد قارب صار أركتها مع الماء حرية الصومالية ما حد سفر ينادر صومال الصومالية حرية الصومالية حرب كريا هنبلي الله يبارك في الجوجة على كل يعيد هذا بها إلى شدينا الله بعد عايو كعمها الشيء أنا إسكا إلى عليه صومالي نكرر وياه سؤال شيء لما ضحوا وياه واحد صوت كود اللولي كود اللولي لو هاي مالتي أي كبرنا كونفرنتيف وكفروين وبيدي إيطالياني واللي بس لو كل واحد مالتي أي وقوية يكونفرنتيف كبيرة هذا لو واحد من الناس كان كان روح نتفرجوا بعد كتير ناس ما مرة واحد نسكسر نقطة زي سؤال لا مرة واحد نسكسر نقطة قلب نضيف لقد صومالي أي مثل قطة كوب شهب فيها القوة عبو كر الله كان هاي تاسينا ما مو خضرة وحكلم يا كودم
gudoomiyaha meel baa gudoomiyaha magacaaga ayaa diishay sayo waayahay waxay la taagan haddana mid ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir ee aqoon-yahanada soo dhow magacaaga magacaygu waa Maxamed Abdi Axmed salaam iyo lafo TV-ga waxaan deganaa degmada waxaan ahay mid waxaan ka galay xirfadii ka jirtay xalay ee gobolka Banaadir dadka dhalinyarada xalay ila si socod diiwaan ku yahay waxaan ahay gudoomiyaha ururka Hiiba Qaran waan ku faraxsanahay sanadkii inay aad tagto waa maalin weyn waa maalin mid Soomaaliyeed ku weyn waa maalin aan xusuusto waa maalin qof walba oo Soomaaliya oo qiimo ku leeyahay marka shakhsi ashqaas dhalinyaro odayaal iyo wax qof shakhsi u aha waa maalin qof walba oo Soomaaliya waa tahay su'aasha weydiinaya waxay tahay maadaama tahay nin dhalinyaro oo aqoon-yahan oo ka mid ah gudoomiyada aad tahay waliba waxa soo socota kowdii luuliyo oo waliba ku aadan maalintii gobolada koonfurta ay ka qaateen xorriyadooda gumaystaha Talyaaniga sidoo kale ku aadan maalintii ay waqooyi iyo koonfur ay midoobeen ee jamhuuriyadda Soomaaliya la sameeyay haatan waxaan ognahay 30 sano in la kala maqan yahay maxay tahay fikirka ku aadan goolistaanka Soomaaliland iyo sharqadka mar labaad ummadda Soomaaliyeed laba qoysto ridada ilaahay waxaan salahay waxaan salahay isku soo noqon doonaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa biidilaahi albaari in hadda Soomaaliland iyo Soomaaliya hal far ay noqoto waxaan rajeynayaa mar walba hadda maadaama ay laba gobol ka dhacayso in hal gobol ay ka wada dhacdo insha Allah waan soo dhaweynaa gooni wallahi waa tahay daawadayaal waxaan la joogaa mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Banaadir ku bilow adeer magacaaga marka hore Cabdullaahi Aadan oo ku magac dheer Jakatab waay Cabdullaahi Aadan oo ku magac dheer Jakatab waxaan weydiinayaa bal wixii uu soo arkay iyo xusaskii uu ka soo qayb qaatay ee ku aadanaa xornimada Soomaaliya ee 16 Juun iyo 1 Luulyo adeer maxaad ka soo qayb qaadatay intaad soo jirtay ilaa iyo maanta oo xusasa wallaahi waxa weeyaan waqti fiican baan taqaana soo marnay maxay halkan waxa way waqtiga maanta la joogo iyo waqtigaas isku mid maahan markaas dadka xornimada jeclaayeen dadnimada jeclaayeen walaaltinimada jeclaayeen fahmaysaa marka kalena waxa weeyaan markii dambe oo taqaana oo dawladda ay burburtayna waxyaalo badan baan aragnay oo mashaakil ah waa tahay su'aasha kale ku weydiinay waxay tahay 16 Juun dhalinyaro badan waxaa jirta maanta gobolka Banaadir iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ku nool oo aan aqoon 16 Juun waxay tahay iyo 1 Luulyo waxay tahay bal waxaan rabaa inaad noo faa'iideyso dhalinyaradana daawanaysan u faa'iideyso waxa ay kale 16 Juun iyo 1 Luulyo 1 Luulyo waa Muqdisho iyo waqtigii mataqaana halkan oo xornimada la haystay oo Talyaaniga haystay xagga Ingiriiskana maxaa ahaa Hargeysa iyo mataqaana Boorama iyo dhulkaas oo dhan Ingiriiska haystay marka kan nasiib kana saar waxa loo isku jiyo lagu jawaabay in kan Talyaaniga la siibo ka Soomaaliya la saaro xagga Hargeysana sidoo kale Ingiriiska la siibo ka Soomaaliya la saaro waay waxaan rabaa inaad nala wadaagto oo aan ka codsanaynaa bal heestii qolaba calankoodu waa cayn waxaad ka xasuusto qolaba calankeeda waa cayno annagana keenu waa cirko kale oo astaantiisa buluug tahay marka waxaadaas ugu dambeyn fariintaada ku aadan waxa aad fariin u reebayso dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama muuqaalkaagu gaari doono maxaad fariin u diraysaa waxaan leeyahay Soomaaliyeed hal garab qabto walaaltinimada iyo dadnimada la fiiriyo marka soo xasuusto lixdankii waa jiraacanaya fahamsa nin waxaan wadaniya xamar ku dhashay antaana ku leekaaday maantana hooy xataa ma haysto ma garatay marka waxaan dowladda ka bariyaa iyo dadkan dhageysanayo inay mataqaana taa ku leeyaan waa tahay daawadayaal kaasina waa mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Banaadir oo inagala qayb qaatay barnaamijka maalmaha xorriyadda ee Soomaaliya barnaamijku sii socda daawasho wanaagsan